boqol saacadood iyo balaayiin doolar oo lacaga waa waxyaalaha ugu waaweyn ee laga yaaban yahay ee dagaalka dalka maraykanku uu dumay ee uu ku qaaday iiraan iyadoo iiraan lacagta ka baxday ay aad iyo aad uga yar tahay marka loo eego dhinac walba. waxaana soo badanaya markaasi gufaacooyinka waaweyn ee dagaalka ka dhashay ee aan ku bilowdo bashir qiimaha badan ee madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa isku dayay inuu soo ceshado qayb ka mid ah markaasi wuxuun taageerayaal ah oo dowladda markaasi xisbiga dimuqraadiga ee ku jira, taasoo u muuqata in marmar ka dambaysa ay imaanayso dhowr arrimood oo uu tallaabooyin u qaaday. waxaana ka mid in Kristi Noem, gabadhii wasiirka arrimaha gudaha ahayd ama madaxii amniga gudaha ee dalka maraykanka Homeland Security-ga uu xilka ka qaaday. Trump ayaa arrinta kaga jawaabayay kadib markii haweeneydani ay soo badatay dhacdooyinka waaweyn ee qaybka ay ka noqotay ee dhibaatooyinkii ay ka mid ahaayeen kuwii ka dhacay magaalada Minneapolis ee lagu dilay lama muwaadin oo dalka maraykanka u dhashay oo ay judhiba ku tilmaantay in ay yihiin dad markaasi argagixisada gudaha ah. waa sida warka loo dhigay, isagoo si hadalka u dhigtay haweeneydaasi. arrintaasi mid ka mid a waxa aana ay ahayd mar ka dambaysa mid sii adkaanaysa ama sii dirsanaysa. dhinaca kalena waxaa la sheegay in ay darwootani dhalisay in madaxweynaha dalka maraykanka uu isku dayayo in uu xun ka maqlo dadka mucaaradka oo dalbanayay in Noem oo kale joogitaankeedu uu la mid yahay wax loogu yeedhay markaasi dhibaatooyinka waaweyn ee waddanku uu mudanayo, gaar ahaana kala daadsanaanta arrimaha gudaha iyo ololihii ay ku qaaday dadka soo galootiga ah oo arrintoodu ay meel xun ay gaadhay. dhinaca kalena dowladda maraykanka ayaa la sheegay inay boqolkii saacadood ugu horreeyey balaayiin doolar oo lacaga uu kaga baxay dagaal, xilli uu madaxweynaha maraykanka waxyaalihii uu ololaha uu ku soo galay uu ka midka ahaa in uusan doonaynin ama uusan danaynaynin in dhaqaalo dambe lagu bixiyo dagaalada dibadda. boqolkii saacadood ee ugu horreeyey dagaalka u socday 3.7 bilyan oo doolar ayaa ku baxay dagaalka. boqolkii saacadood ee ugu horreeyey waxay ahaayeen kuwii ugu darnaa, ayagoo gebi ahaanba la sheegay in ay gebi ahaanba dadka saas u malaynayeen. laakiinse sida uu sheegayo macadka daraasaadka the Center for Strategic International Studies CSIS ayaa ku tilmaamay in madaxweynaha dalka maraykanka ay gebi ahaanba uu sameynayo dooq la mida inuu dalka maraykanka u balaayiin doolar oo lacaga uu kaga khasriyo dagaal aan la garanayn ujeedadiisa iyo kajeedadiisa, ayaa layidhi. madaxweynaha madaxweynaha iyo wasiirka xogyaha gaashaandhigga dalka maraykanka labaduba waxa ay sheegeen in dagaalka uu suurtagal yahay inuu toddobaad sii socdo. waxaana la sheegay in uu markaasi lacagtu ay noqonayso marka dambe mid loo isticmaalo rasaasta qaaliga ah ee lala dhacayo dalka Iiraan iyo duqeymaha aadka u waaweyn. hadalkaasi markii uu soo baxay daraasaadda cilmi baadhista ah waxa uu sheegay Pete Hegseth in dagaalku hadda uu bilow yahay, taasoo loo gartay in uu leeyahay dagaalku waxba kama sanaa saacada. ilaa iyo adeertada dowladda maraykanka oo maalintii toddobaad ololaha dagaalka qaybka ah ma muuqdaan baa layidhi in yarna oo horumar weyn oo laga sameeyey ujeedooyinka waaweyn ee laga lahaa marka laga yimaado wararka oo isku bedelay kuwa dacaayada. Israa'iil ayaa gebi ahaanba haddeerta waxay ku tuntuunsanaysaa mar walba inay soo qoriso dhowr gaari ayaan gubnay iyo dhowr meelood ayaan weerar ku qaadnay, taasoo muujinaysa ayaa layidhi in dagaalka uusan ahayn haba yaraatee mid natiijadiisa sidii la moodayay mid u dhow toonna Iiraan looga ocayo. Iiraan waxa ay sii wadaa ballaarinta weerarada bariga dhexe oo dhan ku qaadayso ka gees wadamada bariga dhexe gaar ahaan khaliijka oo dhan ayaa gubanaya. Sacuudiga, isku taga Imaaraadka Carabta, Cumaan, Qatar ayaa si isku mid ah iyo Baxrayn ayay u weeraraysaa dowladda dalkaasi. sidoo kalena badda ayay ka wadaa howlgaladeedii caadiga ahaa, waxaana weli kala go-an isku socodkii dhinaca shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah labaduba. taasina waxay kor usii qaaday hubanti la'aanta suuqyada waaweyn ee laga soo bilaaba Nikkei dalka Japan ilaa iyo Wall Street magaalada New York ee dalka Maraykanka. si isku mid ah ayayna u haraacinayaan ayadoo madaxweyne Donald Trump iyo dalka maraykanka ay isku dayeen inay cadaadiyaan dadka qaarkood. dhinaca kalena dowladda Iiraan ayaa sheegtay in dagaalku noocu u dhigmaba ay ola dhigayso sida allaale siduu noqdaba inay noqonayso, isla markaana ay ahaanayso dagaalkooda mid aan istaagi doonin. halka ururka Xuuthiyiinta iyaguna ay sheegeen in ay baabuurta dalka Israa'iil oo isku dayay inay isku urursadaan magaalada Khiam ay dabada u qabteen gantaalo trapeer ah, halkaasoo ay ku burburiyeen qaar ka mid ah, isla markaana uu ka dhacay kala carar. waxayna sheegeen inaysan jiri doonin baabuur dambe oo iyagu marmar ka dambaysa la yidhi markaasi waxa ay sameynayaan ama wax loogu yeedhay markaasi inay sameeyaan teelteel inaysan jiri doonin baabuur dambe oo markaasi isku yimaada ma dhici doonaan ayaa wararka qaarkood sheegaya. dhinaca kalena wadamada caalam carabi oo weli hawadoodu ay xolan tahay ayaa ka fekeraya in qaar ka mid a diyaaradahoodu ay sameeyaan markaasi wax loogu yeedhay isku day wuxuun dadka ay ku qaadayaan kadib markay soo baxeen dad sheegaya in ay 200,000 oo doolar xataa ay ku baayaceen inay tigidha ku iibsadaan. Emirates iyo Etihad Airways ayaa labaduba waxaa la sheegay in ay isku dayayaan inay wuxuun dhaqdhaqaaqiyaa ay ka sameeyaan dalka isku taga Imaaraadka Carabta. tii ay sii dheertay weli inaysan caddayn ayaa layidhi. qaar ka mid a diyaaradahaas ayaa la doonayaa
in ay dadka u kala socdo magaalooyinka London, Paris, Frankfurt, Delhi, New York ama New York, Toronto iyo Tel Aviv ay dhaqdhaqaaqiyo ay dadka ugu qaadan ay sameeyaan, halka la sheegay in sidoo kalena magaalooyinka New York ilaa iyo Singapore, Sydney iyo weliba New York ay intuba markay isku soo noqonayaan ay xayirnaayeen berihii ugu dambeeyey. Ciidanka ilaalada kacaanka waddanka Iiraan ayaa ku dhawaaqay laba go'aan oo waaweyn hadeerto. Go'aanka koowaad waxa weeye inay weli sii wadaan soo daadinta diyaaradaha Israa'iil. Waxay sheegeen ugu dambeyn horta diyaaradihii Israa'iil ee droneska ahaa ee nooca loo yaqaana Heron drone in ay noqdeen kuwo waxba ka qaban kari waayey dhinaca weerarada ee gaadmada ay hogaamiyaasha ay ku hayeen. Iiraan ayaana markii ugu horeysay la sheegay inay la qabsatay sidii droneskaas lasooga difaaci lahaa. Israa'iil ayaa hadeerta ka fikiraysa in ay iyaga iyo Maraykanku ay sameeyaan diyaarad shahiid oo kale ah. Iiraan waxay ku gacan sarreysaa diyaaradda shahiid sababtoo ah diyaaradaasi waa one way drone, ma soo noqonayso. sidaa daraaddeedna Maraykanka iyo Israa'iil ayaa ka fikiraya inay diyaarad noocaas oo kale ay sameeyaan. Haatan ciidamada ilaalada kacaanka waddanka Iiraan ayaa sheegay in diyaaradda loo yaqaano Heron drone oo gebi ahaanba dul marisay magaalada Isfahan oo doonaysa inay inta weerar geysato ay naba tagto, lagu dumiyey halkaasi laguna soo riday, taasoo ay sheegeen inay hadeerto ay yar tahay diyaarad drone ah oo hawadooda gebi ahaanba ka qayb qaadata weeraro kadibna ka noqota. Go'aanka labaad ee ciidamada ilaalada kacaanka waddanka Iiraan ay ku dhawaaqeen waxa weeye in Brigade General Ahmed Fahidi loo magacaabay ayaa la yidhi in uu noqdo taliyaha ciidanka qalabka sida ee waddanka ee hogaanka golaha militariga hogaami doona, si hogaanku uu helo markaasi gole hogaamiya. Fahidi ayaa qaadan doona taliska ciidanka qalabka sida si uu markaasi u hogaamiyo hogaanka dagaalka. Waxaana la sheegay in sidoo kale uu noqon doono mid ka mid ah jagooyinkii ugu waaweynaa ee hadeerta Fahidi loo magacaabo. Tan ayaa imaanaysa iyadoo hogaamiyihii golaha militariga ee jananada Maxamuud Bakbuur uu ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey ku dhinta dagaalkii Iiraan lagu qaaday. sida wararku ay sheegayeen, Axmed Fahidi waa mid ka mid a ragga loogu kalsoonida badnaa, waxaana loo arkaa nin uu ka ducaystay islamarkaana kusoo akoray hogaamiyihii waddanka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei. Tan ayaana noqotay hadal kale oo fariina oo loo diraya madaxweynaha Maraykanka oo isagu ilaa iyo xalay ku celcelinayay in wuxuun la helo dad ka soo fakada ciidanka dalkaasi Iiraan ee ilaalada kacaanka, kuwaasoo Maraykanka iyo Israa'iil la safta. Beddelkana waxaa loo diray fariimo culculus oo ah dhismaha ciidanku inuu sii socdo, iyadoo taliskii guud ee taliyayaasha kala duwan ee rabarabaha iyo laamaha ciidanku ay shaqadooda si caadiya ay u wataan. waxaana loo arkaa in inkastoo dowladda dalkaasi Iiraan aysan awoodda ciidanku aysan ku urursanayn hal taliye, haddana tan waxaa loo arkaa fariin kale oo la dirayo ah in shaqadu si caadi ay usii socoto, tii oo ay sii dheertay ayaa leeyihin marba marka ka dambaysa inay sii adkaada karto. waxaa loogu yeedhay dhanka kalena dowladda dalka Hindiya ayaa soo rogtay amarka amniga qaranka ee xaajada adkaata ee LNG-ga ama LPG-ga waxa loo yaqaano ama shidaalka dabiiciga ah, kaasoo ay ka wado in gebi ahaanba waddanka oo gaasku ay ku adkaatay ama ay ku yaraatay ee dowladdu ay qoondee doonto. haatani wixii ka dambeeyay inta maalintii qoys kasta uu isticmaali karo. xaaladda dhinaca amniga qaranka ayaa ka taagan dalka Hindiya, ayadoo mar dhinaca kalena ee Hindiya ay ku socoto dacayad aad u xooggan oo dhinaca markay noqoto wixii ay yeeleen markaasi ah ama ay marba mar ka dambaysa ay dhibaato ay u geysteen ee waddankaasi Iiraan ciidankiisii oo la sheegay inay gebi ahaanba markii uu ka soo laabtay biyahooda, islamarkaana biyahooda isagoo dacalka caalamiga kaga sugan lagu soo hagay gantaal halkaas oo ku dhacay, taasoo la sheegay inay weli baraha bulshada ay ka booyayaan dadka aadka u dacaydinaya Hindiya ee ku tilmaamaya inaan cidina mustaqbalka kala qeyb gelin ama kala qeyb qaadan isku dhoolatus isku dhafan oo dambe, maadaama aysan ammaanka sugi karin ciidamada. Tirabeelka wararka dabashana qiimaha badan.